qisadii Suldaan Nuurudiin Zangi iyo ilaalinta qabriga rasuulka. Taariikhda Islaamka waxaa ku qoran qisooyin badan oo muujinaya sida Alle u ilaaliyo diintiisa iyo rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato. Qisooyinkaasi waxaa ka mid ah mid ka dhacday xilligii hogaamiyaha weyn ee mujaahidka ahaa Suldaan Nuurudiin Maxamuud Zangi, ninkii caan ku ahaa difaaca Islaamka iyo la dagaalanka saliibiyiinta. Habeenada ka mid ah, Suldaan Nuurudiin isagoo ku sugan dhulka Shaam, Syria, ayuu riyo ku arkay rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato. Rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato, waxa uu tusay 2 nin isaga oo ku yidhi, iga ilaali 2 nin. Suldaanku aad buu uga naxay riyadaas, wuuna ka fekeray. Habeenkii 2 iyo kii 3aadba isla riyadii ayuu arkay, si isku mid ah, fariintiina isku mid ayay ahayd. Markaas ayuu suldaanku garwaaqsaday in tani tahay arrin culus oo u baahan ficil degdeg ah. Isla markiiba wuxuu go'aansaday inuu u safro Madiina al-Munawwara, magaalada uu ku aasan yahay rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato. Wuxuu isu yeeray dadkii magaalada wuxuuna siiyey sadaqo badan si uu u arko wejiyadooda mid. Markii uu weydiiyey dadka Madiina haddii ay jiraan dad qalaad ama rag si gaar ah loo yaqaan, waxaa loo sheegay in ay jiraan 2 nin oo aad u cibaado badan, kuwaas oo maalintii soon ah, habeenkiina tukada, sadaqana bixiya. Dadku waxay u haysteen rag suuban, balse si lama filaan ah ayay 2dii nin u maqnaadeen. Suldaanku wuxuu dalbaday in gurigooda la geeyo. Markuu galay guriga wuxuu isla markiiba garto 2dii nin ee uu ku arkay riyadiisa. Markii guriga si qoto dheer loo baaray, waxaa la helay god qarsoon oo hoos u qodan, kaas oo si toos ah ugu jeeday qabriga sharafta leh ee rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato. Markii la qabtay 2dii nin, way qirteen dembigoodii. Waxay sheegeen inay ahaayeen jaajuusyo saliibiyiin ah, loona soo diray inay xadaan jidhka rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato, si ay u dhaawacaan Islaamka. Suldaan Nuurudiin Zangi wuxuu amray in 2dii nin la ciqaabo, kadibna wuxuu qaaday tallaabo taariikhi ah. Wuxuu ku wareejiyey qabriga rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato, derbiyo bir adag ah, si aan cid dambe ugu soo dhowaanin ama wax u gaadhin ilaa maalinta qiyaame. Suldaanku keliya kuma ekaanin ilaalinta Madiina, balse wuxuu ahaa hogaamiye difaacay qalcaddii ugu dambaysay ee Islaamka, isagoo si geesinimo leh ula dagaalamay saliibiyiinta, kuna beeray muslimiinta sharaf, cadaalad iyo midnimo. Qisadan waxay ina xasuusinaysaa in Alle isagu ilaaliyo rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato, mar kasta oo uu doono, sabab kasta ha uu adeegsadee. Rasuulka Ilaahay, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato, wuxuu ku jiraa qabrigiisa sharafta leh, sharaf iyo karaamo ku sugan, ummaddiisana u ducaynaya. Haddii aad jeclaatay qisadan, like saar, subscribe garee, oo share u samee saaxiibadaa si sheekadan cajiibka ah ay u gaarto dad badan. Ha ilaawin in aad riixdo belka si muuqaalada cusub ee xiisaha leh aad mar walba u hesho.